بسم الله الرحمن الرحيم داودياشنا قيمة للتلفزيون كالصومالي channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل وليبا أد نجد داونيسان waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeeni oo caawa marti inoogu ah injineer Abuukar Sheekh Cabdiraxmaan Yaaqshiid ahna gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Riyadh. injineer marka ugu horeyso kusoo dhawaaw Somali channel. waa dhawahay walaal Cabdiraxmaan Abuuyo. waxaan ka faa'iideysanayaa maanta munaasabada wanaagsan fursada aan u helnay inaan hambali halka ugu diro dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada Riyadh ama jaaliyada Sacuudiga ku nool gaar ahaan jaaliyada Riyadh. waxaan leeyahay hambalyo sanadkan sanadkiisa kale Ilaahay nabad iyo barwaaqo nuugeeyo. waxaa kaloo halkan u dirayaa inuu Ilaahay nabad ku soo waaro dalkeena ummadda Soomaaliyeed sanadkan sanadkiisa kale aan Muqdisho ku ciidno. marka hore waxaad noogu warantaa xaaladda jaaliyada Soomaalida ee magaalada Riyadh. jaaliyada Riyadh waa jaaliyad ku andhay korna jaaliyada ugu horeyso ee muddo badan 19 sano dhisneed waxayna ay ka kooban tahay 40 xibnood oo laga soo kala doortay shanta beelood ee maaragtay Soomaalida ay wax ku qaybsato anaga afar bar waan ka tagnay shan beelood ayaan ku qaybinay min 735 iyo shan gabdhood 40 xibnood ay ka kooban yihiin. guddiga fulintana waxa weeye 9 qof oo aniga aan gudoomiye ahay gudoomiye xogeen iyo xogeyn. meeqa ayaa lagu tilmaamaa tirada jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Riyadh? ilaa hadda lama hayo cadad go'an laakiin taqriiban waxa anaga aan taqriiban taan qiyaan ilaa iyo 50,000 oo Soomaali ay ku nool. waxaad noogu warantaa maadaama aad tahay gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee Riyadh wax qabadka guddigaaga gaar ahaan horumarinta bulshada waxbarashada iyo isboortiga. guddiga jaaliyada waxyaabo badan ayuu qabtaa. waxa ugu horeeya horta marka hore jaaliyad meelka isku tamad waxay ku dhisan tahay dhalinyarada. marka dhalinyarada waxaan u qabanaa guddi waxay qabaan guddiga isboortiga iyo fanka. isboortiga waxa ay jaaliyada leedahay 16 kooxood ee ka qayb galaan xulkooda xulka jaalidaha ka jiro magaalada Riyadh. xulkaas oo saddex maaragtay jeer yimid kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo kaalinta koowaad kala galay oo aan ka qayb galnay. waxaa kaloo aan ka qayb galnay tartamo ay sameeyeen naadiyada ka dhisan sida Nasr al-Hilaal oo ayagana na siiyeen shahaado sharaf ku mutaysteen jaaliyada heer ka qayb galeen. waxaa kaloo intaa u dheer jaaliyada waxay qabtaa xarun ku taal magaalada ay jaaliyada iskugu timaado oo aan rabno in mar dhow la casriyo laga dhigo meel ay jaaliyada leedahay. xaruntaas oo jaaliyadu habeen walba iskugu timaado oo isku weer dhaafsadaan ayna waqtigooda ku dhameeyaan. waxaa kaloo iyadana halka jaaliyada ay qabataa xusaska wadanka Soomaaliya weligeed caanta ka sida 1 Luulyo 15 May 8 Maarso ayaga iskooda isu maamulaan si wadanimo ayna halkaas ugu muujiyaan. gudoomiye adigoo maadsan sida hadda aan shaashada ugu jeedno xusas badan ayaan u jeednaa 15 May 1 Luulyo 40 sanad guuridii 47 iyo sanad guuridii 50aad. marka sidee idinkugu suurta gashaa ma idinka iskiina ayaad isku qaban qaabiseen? jaaliyada ayada ayaa qaban qaabisay xusaskaas oo ayaga ayaa dhaqaalada sameeyay laakiin safaaradda markii aan xaflad qabno waan u yeernaa ka soo qaybgal ay ka qaban waan naga warqaban. sidaan haatan inoo muuqato shahaadooyin sharaf aad u badan maxay kala yihiin shahaadooyinkan? sida amniga ayaan ugu jeednaa iyo sadal malaacib iyo kooxda Hilaal. marka shahaadooyinkaas waxaan ku sheegayaa 2008 waxaa la qabtay imaaradda Riyadh oo wasaaradda dakhliga waxay qabatay tartan oo loogu qabay jaaliyaasha kubadda cagta. waxaana ka galnay kaalinta labaad saas ayay nagu siiyeen shahaadada. waxaa kaloo jirto naadi al-Hilaal inuu qabtay tartan 2009 oo ku qabtay kubadda cagta lixaad mid loo dheelo oo garoomada dedan lagu ciyaaro ayadana kaalin saddexaad aan ka galnay shahaadana siiyeen. waxaa kaloo sadal malaacib tartan loo qabtay 16 jaaliyo in anagana jaaliyada kaalinta labaad aan ka soo galnay aan ku helnay shahaadadaas. taas ay dhacday qaybta isboortiga ma jira dowrad idinka aad qabateen Soomaalida xafad ulashada jid oo kale ma jiraan ma sanadkiiba mise bilbil ayaad u qabateen? annaga dawri badan ma qabno markii Ramadaanka ama marka ciidasha ayaan qabanaa. waxaan u qabanaa xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Riyadh. marka laakiin waxaa jirta tiin oo qaran ah oo markasta khamiis walba iyo jimco kasta ciyaaro oo tababar ciyaar oo tartanka si ay ugu qayb galaan jaaliyada diyaar noo ah oo mar walba aan ciyaarsan. xiriiro gaar ah ma leedihiin jaaliyadaha kala ku sugan Riyadh?
xiriir aad iyo aad wanaagsan ayaanu leenahay. waxaa jira guddiga aniga aan ka mid ahay guddiga jaaliyadaha ku nool magaalada Riyaad oo ah 56 jaaliyadood. aniga waxaan ku jira guddiga fulinta. xiriir fiican aan leenahay, waxaan ka qayb galnaa xafladahooda, ayagana waa naga soo qayb galay xafladeen. injineer Abuukar waxaa tahay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Riyaad. ma jira olole nabadeen ama odayaal aad iskugu wacdeen sida Soomaaliya nabad loogu heli lahaa? ma jira wafdiyo ama guddiyo aad u dirteen Soomaaliya? jaaliyadeenna waxaaba ku dhisan tahay nabadeen, barkay waxa waaye jaaliyadda kaliya oo maanta aan qayle ka daba yeerno isku waafaqsano isku raacsan. laakiin waxaa annaga aan ka dhamaaweyn horta inaan annaga meesheenii bulshadeenii inaan horta ka dhaclino mid la isku raacsan yahay wanaagsan. annagoo ka soo bilaabna iyadoo iyo markii hore ay jiri jireen ilaa iyo 6-7 jaaliyadood, laakiin hadda la isku soo aruuray oo la isla fahmay oo hal jaaliyad aan u soo sameynay. waa tahay guddoomiye aad iyo aad u mahadsan tahay fursaddan caawa aad siisay Somali Channel, waana kaaga mahad celinaynaa. waa mahadsan tahay walaal Cabdiraxmaan. waxaa kaloo rabaa halkan inaan mahad gaar ah u jeediyo Somali Channel oo ah channel aad u wanaagsan, shaqada uu qabtana u qabto wadaninimo iyo si daacad ah. aan sida janaalada qaarkood oo ku shaqeeya lacag in la siiyo waxaas ku yaqaan. laakiin waxaan leenahay Somali Channel meeshiina ka wada sida aad tubta toosan u wadin Soomaalina. waxaan jecelnahay Ilaahay inuu tubta toosan ku rido oo nabad u dhaliyo. daawadayaalkaasi wuxuu ahaa injineer Abuukar Sheekh Cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Riyaad oo caawa studio-gan magaalada Jidda aanu ku wareysanay xaaladda jaaliyadda magaalada Riyaad. inta ka horeysa kaamirada waa Xabiib Shuushuun, Cabdiraxmaan Abuubakar idin leh sidaas iyo nabadgelyo.